السلام عليكم الشباب هديت مركو ورثي شباب تفضلوا سبسكرايب لو صار waxaan balaqeen doonaa wararkii ciyaaraha Korea Republic with one of the goals of the tournament down to nothing. Son's trying. على channel waxaan falaqeen doonaa ciyaarihii la ciyaaray iyo wax walba ku cusub suuqa kala iibsiga aan ku bilaawno kooxda Tottenham ayaa runtii ku soo dhaweysay garoonkeeda garoonka Tottenham ayaa ku soo dhaweysay kooxda Man City ayadoo ognahay in City ahayd kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ciyaartaas oo runtii si diir loogu soo dhaweeyay garoonka Tottenham waxaa moodaa in ay ku fashilantay kooxda City inay sii wadato guulihii lagu aqaanay ee horyaalka ku difaacanaysay halkaasoo runtii Tottenham ay ku soo bandhigtay ciyaar aad u dhameystiran Tottenham ayaa hal iyo eber kaga adkaatay dhigeeda Man City halkaasoo goolka guusha uu ku hubsaday waryahanka reer Tottenham ee Son ayaa runtii noqday guuleystihii runtii u horseeday taageerayaasha Tottenham guul taariikhda u gashay Tottenham ayaa waayaheeda ciyaaraha ku bilaabatay si aan runtii aad u fircoon ayadoo hal iyo eber ku qaraacday kooxda Man City oo difaacanaysa horyaalka Premier League ayadoo runtii la socon ciyaaryahanka ku fadhiya 100 milyan oo gani ee Jack Grealish oo runtii ku ciwoobay garoonka caawa soo ognahay in ciyaarta 90 daqiiqo u dhameystay ciyaaryahankan England ayaa haddana waxaa moodaa sababtii loo soo galay in uusan garoonka ugu jirin ciyaaryahankan England ee Jack Grealish ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan garoonka ku jiray maanta asagoo runtii dhameystay ciyaarka 90 daqiiqo ayaa waxaa moodaa in Guardiola uu ku hingoobay ciyaaryahankan uu ka waayay sidii uu ka rabay Grealish ayaa runtii si wacan u ciyaaray ciyaarta laakiin aan guul u horseedin kooxda Man City asagoo ognahay in guul daradan ay u tahay guul daradii labaad oo xiriir ah ee uu la kulmo imaatinkiisa kooxda Man City sidoo kale kooxda Tottenham ayaa waxaa ognahay inuu ka maqnaa kabtankooda Harry Kane oo runtii in muddo la xiriirinayo inuu kooxda macsalaameyn doono uu ku biiri doono kooxda hadda ay ka badiyeen Man City ciyaaryahankan England ee Harry Kane ayaa runtii inta badan suluugsan joogitaankiisa garoonka Tottenham asagoo ognahay in Tottenham asaga runtii xiriirkooda uusan wacneen laakiin isku dayayaan kooxda Tottenham in ay ciyaaryahankan ku qanciyaan wax walba uu ku joogi karo kooxda Tottenham ayaa waxaa ognahay in tababaraha cusub ee Tottenham reer Portugal oo runtii waayihiisa tababarnimo ee Premier League kooxda Tottenham uu ku bilowday si wanaagsan asagoo runtii hal eber ku qaraacay dhigiisa Guardiola sidoo kale waxaan la soconaa in runtii kooxda Man City guuldaradeeda in badan lagu saadaaliyay ama loo maleeyay in ay guuldarada ugu wacan tahay ka maqnaanshaha ciyaaryahanada ayadoo ognahay in qadka dhexe reer Belgium ee De Bruyne ciyaarta kusoo galay benji qaab bedel ah oo sidoo kale Foden uu ka maqan yahay ayadoo ognahay in Man City aysan haysanin weeraryahan dabiici ah weeraryahankooda hore ee Aguero uu ku macsalaameeyay uu si xor ah uga beeray kooxda Barca ayaa haddana waxaa moodaa in runtii Man City u baahan tahay inay hesho weeraryahan dabiici ah walow runtii ay ka maqnaayeen ciyaaryahanka qadka dhexe reer Belgium De Bruyne ciyaarta gadaal ka soo galay markuu soo galay ciyaarta ogaa aan la soconay in uu ka bedelay waxyaabo badan weerarkooda aad u fiicnaaday joogitaankiisa garoonka sidoo kale runtii Man City waxaa moodaa in dhan walba loogu fiicnaa walow ciyaarta ay isku dayeen inay goolal dhaliyaan ay sameeyeen fursado aad u qaali ah ayaa haddana waxaa moodaa runtii inaysan awoodi waayeen inay dhaafi waayeen derbiga Tottenham ayaa runtii noqotay koox difaacato markaa si u fiirisay qadkooda dhaxana boon la qaybsaday kooxda Man City sidoo kale runtii goolkoodii markay dhashteen Man City awoodi waysay in xitaa ay shabaqa dabamariyaan goolkiibaha reer France kooxda Tottenham sidoo kale kooxda Man City ayaa runtii isku dayday inay wax walbo ay sameyn karto sameysay ayadoo runtii aan ognahay in ay runtii ciyaaryahan badan u bedelay tababaraha Guardiola ayaa haddana waxaa moodaa inuu awoodi waayo inuu dhaafo derbiga Tottenham City ayaa runtii guuldaradan loogu micneeyay inay runtii u sahlayso ama u sababi doonto in ay ku guuleysigeeda rajadeeda ahaa ku guuleysiga horyaalka Premier League laba jeer oo xiriir ah taasoo runtii meesha ka bixi doonta ayadoo ognahay in horyaalka Premier League uu ka mid yahay horyaalada hadda xaadirkan oo uga adag qaaradda Yurub ayadoo aan la socono in City runtii rajadeeda ahayd inay horyaalka Premier League markii labaad qaado taasoo runtii loo qiyaasay inaysan awood u lahayn loona sababeeyay istaanka kooxaha Premier League ayadoo ognahay in kooxda Chelsea ee Tuchel
oo runtii kooxdiisa Chelsea aad u adkeeyay iyadoo runtii looga cabsi qabo inay tahay kooxda runtii si aan caadi ahayn u dardargelinayso ciyaaraheeda horyaalka Premier League. Guardiola aysan u suurtagali doona haddii sida caawa uu ku ciyaaray uu ku socdo in guulihii lagu aqaanay ama guulihii xiriirka ah lagu aqaanay horyaalkii hore ee u suurtagali wayso in uu runtii soo bandhigo iyadoo runtaas loo sameeyay in kooxaha kale ee Premier League sida Chelsea oo runtii dhan walba iska adkaysay. waxaan socnaa in kooxda Manchester nafteeda ay runtii 5-1 ku qaraacday shalayto kooxda Leeds United, taasoo runtii loo micneeyay in Manchester nafteeda ay diyaarsan tahay sanadkan sidoo hore ka diyaarsan tahay. walow markaas si u fiirisid kooxda Chelsea ay tahay koox hadda waqti xaadirkan dhigi karo waa kooxda ku dagaalami karto horyaalka Premier League. sidoo kale Liverpool ayaa iyada yareysanaynin, walow runtii Liverpool markaas si u fiirisid difaaceeda uu fiicnaaday oo Van Dijk uu dib u soo laabtay ayaa haddana horyaalkan Premier League runtii loo badinayaa labada kooxood ee City kula tartamaya inay yihiin kooxda Manchester iyo kooxda Chelsea. sidoo kale taan ku socono wararka ciyaaraha suuqa kala iibsiga ayaa waxaa la sheegayaa in qandaraaska dhacayo ee Cristiano Ronaldo ciyaarahanka Juve la sheegay inay ka faa'iideysan doonto kooxda Paris oo rabto inay mucjiso dhigto sanadkan ayadoo doonayso in ay Messi, Neymar iyo Ronaldo isku geyso kooxda Paris. waxaa la sheegayaa Paris inay isha ku hayso ka faa'iideysan doonto qandaraaska Ronaldo oo ognahay inuu ka dhiman yahay sanad. Juve ayaa runtii wax wada hadal la furin ciyaarahankan reer Portugal asagoo runtii horaan la xiriirinayay inuu kooxda ka tagi doono ku laaban doono kooxdiisa hore Manchester. haddana waxaa la sheegayaa in kooxda Paris ay soo gashay. Paris oo runtii rabta inay ka faa'iideysto ciyaaryahanada qandaraaska dhacay oo bis ah ayadoo ujeedada ugu weyn loo maleynayo inay tahay in ay ciyaaryahanada imaanayo rabto Paris inay lacag ka samayso. haddana waxaa moodaa inay isha ku hayaan kana faa'iideysan doonaan qandaraaska dhacayo ee ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo. sidoo kale Pogba ayaa war inaga hayna ciyaaryahanka reer France ee Manchester United ayaa la sheegayaa in asagana wada hadaladii uu kula jiray kooxda Man United runtii aysan miro dhalin. wala ognahay in ciyaarta shalay lagu soo bilaabay Pogba ayaa ciyaartii shalay 4 caawin sameeyay, taasoo runtii taageerayaasha United aad ugu riyaaqeen. laakiin waxaa moodaa in ayadana runtii kooxda Paris ay runtii qarka u saaran tahay in ciyaaryahankan ka dhaadhiciso inuu u wareego dalka Faransiiska. ognahay inuu taageero badan ku leeyahay dalkiisii hooyo u yahay. sidoo kale Pogba ayaa warar soo baxay maanta ka soo baxay Manchester Evening sheegaya in naftiisa wada hadal oo runtii isku dayay in la furto kooxda Manchester, walow aan sheegin wararkaas ayaka ah inay wax ka soo baxeen in kaleeto. laakiin Manchester isku dayaysa kadib shalay wacdarihi ugu dhigay ciyaarahanka reer Portugal inay ku ceshato garoonka Old Trafford. laakiin asaga naftiisa ee waxaa moodaa in qadaraaskiisa uu ka dhiman yahay wax ka yar sanad asagoo la xiriirinayo in uu kula midoobi doono Messi kooxda Paris. halkan tan waa Macallim Channel. haddii tahay markii ugu horreysay channelka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo saar.